haddii aad salugsan tahay in aanu ganacsigaaga u socon sidii aad ugu talagashay inuu u socdo oo wax hor socda aanu jirin waxa laga yaabaa saddexdan qodob midkood in ay sababayso aan kuu sheegi doono xalkoodana aan kula wadaagi doono saddexdan qodob waa saddex qodob oo hogaaminaya sababaha ganacsiyadu ay inta badan u guuldareystaan ama ay u kacaan ama ay u musalafaan markaynu si kala dhigno haddaba qodobka koowaad waxa uu noqonayaa qodobka la tacalluqa dhanka maaliyadda waxa laga yaabaa sababtu ganacsigaagu uu hoos ugu socdo ama hoos u dhac ugu yimid inay kow ka tahay financial managementka oo hooseeya oo ah mid aan yacni si wanaagsan loo maamulin loona maarayn loona record garaynin oo aan wax weyn loo diiwaan gelinin haddii expenseska ka baxaya ganacsigaaga oo noqonaya waxyaalaha kharashaadka ka baxaya iyo income-ka soo gelaya aan midna wax weeyaan la record garayn oo aan la kaydin waxay caqabad weyn ku noqonaysaa geedi socodka iyo wax weeyaan guuleysiga ganacsigaaga marka haddii aanad lahaynba istaraatiijiyad aad ku maamusho lacagtaada caqabad weyn aad kala kulmi doontaa inta dariiqa shaqada aad ku sugan tahay waxaana laga yaabaa inaad tani ay noqoto sababta ugu weyn ee ganacsigaaga hoos ugu sii socdo aakhirkana u sababi karta inuu noqdo mid guuldaraysta qodobka labaad waxa uu noqonayaa waxa la yidhahdo yani teamka amba kooxda lack of dedicated team inaanay jirinba oo yani uu meesha ka baxsan yahayba wax kooxa ama wax yani haddii cid kula shaqaynayso in dadkan kula shaqaynaya ay ku khiyaamayaan in dadkan kula shaqaynaya ayadaan isla jaan qaadi karin in dadkan hawsha kula wadaa ee aad u hayagaraysay ama aad u shaqalaysiisay si ay hawsha kugu qabtaan inaanay daacadba ka ahayn hawsha ay qabanayaan tani waa mid ka mid a masiibooyinka haysta ganacsiyada waayo ganacsiyo badan oo sida kaloo dhan wanaagsan masiibada ugu weyn haysataa waa dhanka tiimka amba wax weyn kooxda ay shaqaalaysiiyaan tanina iyaduna mid ka mid a waxaa sababaya hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale horusocodka iyo weliba sidoo kale shaqada isla ganacsigaaga haddii la isqa qabsado la isxaasido waxa weeyaan aan la isla jaan qaadi karin oo tiimkaagu is haysto guuli kaa dheer qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa poor customer care service oo noqonaya in sidaad ugu adeegaysa macaamiishaadu aanay ahayn si ay iyagu ku qanacsan yihiin macaamiishuna waa cidaad wax ku tahay macaamiishu waa cidaad bixinaysa dhammaan biilalka iyo lacagaha soo gelaya marka haddii aan si wanaagsan ugu adeegin oonad u xallin caqabadahooda oonad u dhegaysanin waxay tabanayaan waxaa meesha ka bixi doona gebi ahaanba ganacsigaaga sababtana waa mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee ganacsigaagu hoos ugu socdo haddii aad dareemi weydo oo waxa weeyaan calaamadaha aad fahmi weydana si degdega laga yaabaa in jilbaha dhulka ay u dhuftaan dhammaan qodobadani ganacsigaaga oona hore u soconin haddaba muxuu noqonayaa xalkoodu waxa uu noqonayaa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan leh u gasho sidii aad u heli lahayd cid kaa caawisa ciddaasoo noqon karta qof waxa weeyaan experta oo business mentor kaas oo kaa saacidi doona inaad fursad u hesho xallinta saddexdan caqabadood haddii aad hore u xallin weydo sideen usoo sheegnayba waa mid ka mid a waxyaalaha meesha ka saari doona ganacsigaagii aad kusoo daashay iyo riyadaadii aad inta badan aad filaysay inaad ku guulaysato ganacsiguna haddii aan si joogtaa u horumaraynin way adkaanaysaa in waxa weeyaan aad ka guulgaadho haddaba haddii aad diyaar u tahay aan diyaariyey barnaamijkan oo ah Turale Business Mentorship waa barnaamij online ah oo meel kastoo joogtid adduunka waa hadda meel kasta aad qayb ka qaadan karayso oad ka faa'iidaysan karayso oo aan kaa saacidi karo dhammaan qodobadaynu soo sheegnay xalkooda haddaba ma kula tahay inaad barnaamijka ka faa'iidaysato ka hor inta aanay dhammaan qodobadani jilbaha u dhigan dhulka ganacsigaaga